ku kala dhamaadeen aabahay iskaga tagay wadankii dad badan oo soo qabsanay jiro raba inay sheeko ka sheekeeyaan laga yaabo fadlan luuqa nagala soo hadla sheekada marka la soo eego bis lagu soo qaban karaa ama aad hablaha u soo dhiibi kartaa marka nagala soo hadla hadda inantaas ballanay leedahay oo soo qabanayna marka soo qabsato ku soco aad iyo aad marka hooyaday aabay markay iska kala tageen hooyaday aniga iska kala korsatay markaan 6 sano meelaha 7 sano aan gaadhay ayaa meel tuulaaban deganahay markaas ayaa waxaa dhacday habaryaro magaalada degan baa jirta gabdho habaryarahaya marka mid ka mid ah caruur badan leh oo qaar aniga la leeyihiin ayaa jirtay deetana hooyaday baa mar walba ka maqli jiray wada xiriiri jireen marka hooyo waxaan ku iri hooyo magaaladii ma aragtay dad tagaban arkaa intaas oo magaalada Hiblaayan taganaa halkaasaan taganaa waa magaalada habartay bay dhahdana hooyo maanta waxaan ku iri hooyo magaalada habartay Hiblaayo hooyadood baa tagtay ma raaca may hooyo waad yartahay bay tiri insha Allah ana marku dir hooyaday saan maalin kasta ugu ooyay hooyo magaalada ii dir hooyo Hiblaayo maamooyinkaas taga hooyo habaryar ii dir maanta dambe hooyaday waa tay u dir waayahay qof aamin aan kugu darayaa waana ku dirayaa bal ayaa ma la soo joogtid alaykum salaam qumanay shaashada waa ilowdeen sheerta intiina soo gashay sheerta ilowdeen marka saa u soo gashaan sheegareeya dhamaantiin shaashada inoo garaaca asxaabi marka hooyaday islaamo yaroo u socday bay igu soo dartay waxay tiri bal u geeya habareerteed bay rabtaa soo aragtee sidii anoo la jooga magaalo ahaydo hooyaday marka leeyma celinba halkii baan iska joogay anay celiya ma oran hooyadayna leeyma celin waa gartaa hooyadayna imay soo doonin 2 sano qiyaastii markaan joogay meelaha 6 jirna waan haay ayaaba hooyaday dhimatay oo tii Allah u tii hooyaday markay dhimatay ayaa waxaa dhacday aniga dawaan yarahay hooyaday suuradeeda markaa hadeer qof weyn baan ahay si fiican uma sii xasuusto waa gartaa waxa dhacday halkii baan ku soo koray habartaydaas marka gabdho waaweyn oo iga waaweyn ayaa jira oo maaragtay mid ileeg baa jirta kuwa iga yar baa jira marka habaryartay waa dumarka caruurtooda iyagu maaragtay amarkeeda qaadata waa gartaa ilmahaagu wuxuu ku yiraahdo qaarna de caruurta baqda inta badan qaarna hooyadaaba baqdaba oo caruurta amarka keenta faadmo maxaa walaalo ugaasan kugu xiisinaya muudinoo gal marka waxaa dhacday in hooyo waxan bay samaysay hooyo halkan bay martay hooyo sidan bay yeeshay hooyo marka gabadha weyne habarartay ugu weyn caruurteeda baa aad ii dishay markaas oo igu dhib badan habarartay wax saas ay iguma samayso oo aad ima disho inta badan ima disho laakiin gabdhaha idila marka ay tiraahdana maxay samaysay maxaa ku disheen meed iska daysaan inanteera rajada miskiinada waxay oranaysaa waxaasay samaysay bahasha xuna musbiyaanada rajana ma aha waa musbiyaanada garacada maashi baas laga keenay musbiyaanada waxay markaa musbiyaanada waa jin dumarka gala oo waliba ilma garanka ka gala waa jin dumarka u gaar oo wax ilma galeenka dumarka ka galo xataa ma dhasho naagta uu ku jiro a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim daamad marka waxa dhacday in maaragtay wixii afkooda soo qabtaan ba ay ugu yiraahdaan waxa kale oo jirta nin kasta oo fool xun mid kasta oo tuugsanaya mid kasta oo laangara mid kasta xigudaan kaale soo carar aabaha waliga ma aragtay may wakaas markaasaan cararaya aabahay bay kan ku sheegayaan Allah iga siinina alla wuu qalanaya waan cabsi dhanbe aabihii bay galiyeenba adigu waxaan sidaa ku soo koro waxaa dhacday markii dambe inaan iska yar weynaaday iskuulkii maaragtay marka la ii diro horta markaan 11 sano jiray ayaa baan ku habaryaray ma iskuul ii dirtid oo caruurta ay igu dartid marka mid koriga weyn bay sii kaxaysay tirina mar iskuul maribtahaayna mari iskuulkii bay geysay iskuulka waa 3 casho waa dhigtaa 2 casho waxa lagu yiraahdaa shaqo maanta tagmeyside maalin maxaan ku raahdaa waxaan ku tago dhar baan waaya cid dhar iima iibiso marka gabadh yaroo
maxaan ku dhahay maabti iskugu beegano xaafad kalaba waxay ku tiri ma dhar aad ku tagtaad weyda haaban ku dhar baan waaye markaasay ku tiri dariiskaygan kusoo siinayaa maadaama anigu aan sanadkan shanaad gelayo oon dariiskii hore layga bedelayo kii aan maaragtay ka baxay baan kusoo siinaya kaala kii baan soo qaatay halkii baan dariiskiisaan ugu dhiganayay oo dee la idil markaan iskuulka saa uga imaado dhibaatooyinka isoo gaadhay waxaa ka mid ahaa iskuulka markaan ka imaado waa meel tuulan deganahay meel maxaan ku dhahdaa guriga xoogay u jirta saacad baan sii socdaa saacadna waan soo socdaa ayaan biyo ka soo qaadaa jirkaan biyo waana soo xambaaraa dhabarkaan ku soo qaadaa acuudu billaahi min ashaytaan rajiim edda xun baa maqli jiray maalmahan habarar xunaa maqlaynaa maxaa waa haye habarartee la qaatay gabdhahayga ka sii daran ayadu dhashay markaan soo qaado haddaan doono iyadoo la qadeeyey oo qadadii layga dhamaystay oo aan silcay oo aan maanta dhan soo rafaadiyey oo marna soo fadhiisanayay marna soo xambaarayay jirkaanka baan imaadaa qadadii oo somaal soo dheerayn waayen adigu halkaasaan iska ooyaa habartinta badan adigu maalinta waxaan sareerkama iskaga baxsatidba iskagaba tegtid waan tegey waan iskaga baxsaday waan iskaga tegey markaa waan soo yar caqlisanayaayo magaaladii hooyaday ay ku dhimatay ayaan rabaa bal inaan aabahay la ii haybiyo oo maaragtay isna magaalada unbuu ku dhashay reeqan saxun bay isku ahaayeen hooyo aabo waxaan u imaaday markaa wadan iska soo fadhiistay meel gawaadhidu ka baxdo ayaan imaaday meesha baan iska fadhiistay markaan iska fadhiistay islaamo yarar baan ku uri halkaasaan u socdaa magaalada yar baan u socdaa tuulada caynkaasa annagu waan u soconay gaari baan sugnaa adigu gaarigii baa bixi waayey waxaa la yidhi ma baxaya gaari islaamihii waxay ku yidhaahdeen nayaahe hooyo waanu lugeynanaa anagu ye magaalada u hooyan meynee madna raacaysaa waxaan ku uri maya anigu waan gaajoonay markaa gaaja ay hayso waxaan yacni halka aan fadhiyo inaan ka kaco igamaba haysaba waayahay bay gudhahan saamihi way iskaga kay tageen suuqi baa laga kala rawaxay islaan iyo gabadh isdaba socda unbaa gabadhii waxay ku tiri gabadh markaa weyn bay ahayd oo caruurale waxay ku tiri hooyo gabadha ayr halkaa fadhida tolo maxaa ku dhacay way igu soo leexdeen maxaa ku helayo waxba ima helin reerkayagii baan waayey marka reerkan la joogaana way dhibaateeyeen saasay igu sameeyeen aabahayo halkaa magaalada tuulada u dhashay baan rabaa inaan bal soo ogaado halkuu adduunka kaga nool yahay hooyadayna way dhimata ina mari bay igu yidhahdeen way kaxeeyeen markay kaxeeyeen bay igu tira isaantii yarad way naxday way iga naxday waxay tiri bal intay leeg tahay day xilliga halkaa fadhiday ina mari aniga gabadhii maaragtay isaantii gabadhis dhala bay ahayd laakiin dee gabadhuna hooyoon bay ahayd la qabo deetana gabadhii waxay igu tiri aniga maad iskalekii joogi markaasay ku iri iskuul baan dhigtaa iskuulkaygina waan rabaa maxaan ku dhahdaa aabahayna waan rabaa inaan soo eego xoogay noloshu adigu gabadhii waxay igu tiri soo qubayso dharbay siisay waa soo qubaystay meel bay siixsay cuntay siisay waxay tiri haddiiba cid kaa daba imanaysa aysan jirin waan arkaa cid ku deediyaysa ma arkayee iskuulkaygu waa hebel way iisoo bedeshay iskuulkii markii iisoo bedeshay iskuulkii bay isoo qortay gabadhii bay haysay noloshii markii ii yar hagaagtayoo aan iskuulkayga iska dhigto gabadhaasi sida caruurteedoo kale ayay hayso maasha allah wixii aan guriga ka qaban karana aan ka qabto cidina idilin cidina icaayin ayaa waxaa dhacday gabadhi maalin dambe igu leedahay markaa gurigu waa guri weyn oo karaalo ah oo layskula jirjiro gabadh baa marka ay wareysanayso waxay igu leedahay naa reerkiini meeye habarartaadaasi xumaa maxay saa kuugu gashay jirkayga haddii la arko yacni waa wada nabar iyo wada mid sii bogsooday iyo mid cusub iyo mid mar hore duugoobay markaas anoo hadalkii aanu hayno aan leeyahay gabadh ay dhashay baa nafta igu dhibtay oo mar walba idisho cunaha igu dhegta ay halkaa ka soo baxday ayagiyo 2 gabdhood markaasay gacantay qabatay tir soo bax dibjirad yahay dibjiradu dhashay way i garaacday gurigii baa la geeyey waa la idilay adigu waxaan sidii halkii dilniinka ugu jiro waan yar weynaaday markii dambe xoogay waan iska afkan ku celin jiray laakiinse ta igu tiraahda ta u yar hadaa xaggan u bar haday ku tiraahdo waan u bayrayaa waan nugulaaday markaa waxaa dhacday maalintii dambe gabadh habarartay oo kale baa jirtay oo magaalo kala degan gabadhaasa maaragtay
maraykan bay tegisay haddii tegisay bay igu tiri waa ii yeedhay markaa intayna tegin ayaan u tegay waa u baxsaday habarteeda si fiican bay ii gashay wiil markaa ay dhashay oo weyn baa jooga guriga markaa habartay anoo la joogo oo nolosheedii ii hagaagtay kaala arago wixii horeba iska ilaawayoo maasha Allah ku jira ayaa waxa u soo baxay habartay wixii magaranaysa sponsorki ilaa maraykan bay isku shubeen habartay iyo reerkeedii laakiin wiilkeedii weynaa uu ka hadhay oo isagu kulama jirin waxa dhacday markaa inay ugu tiri habareerey waxaad samaysaa wiilkeedii weyn bay usii guurisay adna la joog bay igu tiri halkaaga iska joog wiilkii markaa wuu xanuustay habeen badh unbuu banaanka shandada ii dhiga igu horta iga bax bal adigu wuu xanuustay inanku waa lagu soo jiray maskaxdaa lagaga soo jiray laakiin aan markaa maga fahansanayn marka wiilka waa lagu soo jiray habeen badh unbuu igu yiri iga bax orod iska bax war walaalo bal waagu habariyay ma isugtid may iska bax waa iska soo baxay adigu markii wixii waxba yaan hadalneed ku daalin la isku keydhiibay kolla wiilkaasi ii yeedho kolkuu guursado gabadha hore markuu furo ii yeedhaa markuu gabadhaas ay isguursadaan oo ii yeedho habeenkaa uu gabadh kala guursadana anigu buusanifaa aniga xaaskayga waxaan rabnaa inaad keli nooga baxdid orod naga tag gurigayga nooga tag guriga waa guri 5 qola haddana wuu eriyaya markuu gabadh guursado buu ku eriyaya acuudu billah markuu furana ku soo kaxaysanaya mar aliya maalinkuu gabadha ay kala tagaan bisoo wacaya walaale xageed joogtaa xagaad ku sugan tahay maxaad cuntay maxaad cabtay kaalay bal soo baxban meesha aan joogo xataa haddaan in yar aan maaragtay ka dhaga adaygo isaga ay imaanaya waa gartay ma guursade wiilkaas maalinkuu guursada balaayo ku kacsa oranaya iga bax orod iga bax xaaskayga anigu inaan keli guriga inaan qof kale ku arka ma rabo adigu waxay xaaladdu sidaa ahaato cabdiqaadirow waa iska weynaaday maxaan ku dhahdaa aabahay baa isoo raadiyey aabahay baa horta aan raadin jiray wiilun baa ii soo helay ay habarartay ilma abti yihiin inankii baa igu yiri aabahaa baan soo helay waa kan hebel baa la yidhaahdaa aabahay baan la hadlay wuxuu igu yiri aaba Jabuuti baan joogaa maxaan ku dhahdaa waan bixi rabaa anigu maanta waxaan kuu tari karaa ma jirto waan markaan baxo inaan wax kuu tari mooyaane dee laakiin aaba maadaabaan ku helay wakaas lambarkaygu wakaa halkaasaynu ka wada soconanaa haye baan ku idhaahday aabahay adigu oday yaroo iska miskiino wadaad miskiino oo lugna naafo ka ah buu ahaa markaas qaxoontiyadina wuu ku jiray aabahay wuu baxay wuu ila soo hadlay wuxuu yiri waan baxayaa aabo haddaan baxana marka aan tago unba wax ku taraya insha Allah sidaa ula soco aabahay wuu ila soo hadlay wuu baxay $100 ayaabuu ii soo qoray $100 maalinku ii soo qoray qol yar baan iska kiraystay waxbarashadeedii baan sii watay jaamacad baaban galay jaamacadeedii baan iska dhamaystay anoo maasha Allah iskaga jiray maalinkii aabahay 100 ii qoray ay noloshu ii hagaagtay ayaan isbaranay inanka markaan isbaranay inanka si yaro kadiisaan isku baranay number anoo rabo inaan garaaco ayaa numberkii waxbaan isdaba mariyay inan buu ku dhacay markaa numberkii bes markaasaan ku yiri heblaayo markaasuu igu yiri walaal maaha walaal miyaa khaldam raali ha walaalo may dhib ma laha walaalo inankii wuu soo wacay uuba ila sheekaystay uuba iga helayba inankii markaa inan baad ku nasiibsatay waa nasiibsi aniga nalada gabadh ban wacay nafta ku haysay nasiibsidaad bilowda ku soco allah maxay isan imsa hablood markaan bariga yaray u soo nasiibsaday imsaad ku nasiibsataan hadda rag ma ku nasiibsataan Facebook iyo walaa gacantayga ka soo dhacday qof kale uu waday ku soco la hadda qaar baa Snapchat-ka ugu soo nasiibsaday kula waa nasiibsi Snapchat ma ku nasiibsadaa ku soco may wala isaqbala marka waxa dhacday in aan inankii isbaranay barashadeeda si dheeraatay adigu wuxuu igu yiri markii dambe ilaa heer gurbiga la soo hadlay adigu waxaan ku yiri hadda rabtay inay guursatid aabahay baa halka wadankaas u jooga aabahay baan u wacay aabahay waa i bixiyay inankina waa la i dhisay marka aan sheekaysanayeen wax yar baan wada sheekaysanay dhowr bilood
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي inanka markaan wada sheekaysanay aan isguursanay una weli maaragtay inankuna markaasuu shaqo bilaabay uu jaamacadda ka baxay uu shaqaynayay deetana intuu shaqshaqaynayo aniguna qol baan deganaa markaa aniga ii karaysnaa aan muddo deganaa qolkaygii baan intaan iska joogay waxa leeyahay wuxuu lacag soo shaqaysto anigu iigu soo urursadaa wuxuu igu yidhahdaa intaa inoo hay markii dambena wuxuu igu yidhi guri inoo soo kareeyo alaab inoo soo dhig markii lacagta xoogay badnaatay waa gartaa maalaab inoo soo dhigaa haa haye 2 qol baan soo kareeyay oon soo sharaxay alaab baan soo dhiganay lacagta bixinaya misaga haa lacagta intaas dhowr bilood in badan baan isku mehersanayno uma aragtay ma bil kasta wuxuu shaqaynayay ii keenayay aduu ku dhiibay haa inoo ururiyay waa nin wanaagsan maasha Allah ma oranayaan intuu ninkaas wanaagsan yahay uu sa wanaagsan maasha Allah ma dhahayaan laakiin hadhow ma ku xaaladaha ku jahjaxo way qaylinayaan maasha Allah dhahayna sheekadu xagga dambe ka wanaagsan laga yaabo una duceeyo reerka cusub hay markaa waxaa dhacday in lacagtii saan u birinay igu yiri lacagta waxay maaragtay gurina inoo soo karee maxaan ku dhahdaa alaabna inoo dhig adigu guri baan soo kareeyay alaabtii baan soo iibsanay 2 qol baan sharaxanay maalinba wuxuu ku soo dari karo ku soo daray anigu waxaan ku dari karaan ku daray maxaan ku dhahdaa halkiiba ilaa lacagtii baan gacanta ku hayay halkiiba ma aragtay aan sidii guriga habareerta marka halaga galbiyo oo de gabadh lala wareegayo noqo markaan hawsha guriga aan dhameeyay qolkayga yara aan deganaan wasaqay riya Allah yaqaan habarta tii ku xumeynaysa maanayn may tiibaa soo degtay wiilku ka xanuustay wiilkii gurguursan jiray markuu guursaday waan qartay ku saa ha bes markaan ogaadeen inaan guriga tagay habareertaydii kale iyo gabdhihii kalena waa yimaadeen kuwii xumeynayay gurigii bay yimaadeen marka waxaan isiri habarta gurigeeda laga hooyo deetana habartaydii wadanka joogtay ee xumeynaysa ayaa habartaydii kale waxay ku tiri na de aroosku caawo kale uu inanku rabay inuu gawaadhiyo wax isku soo hagaajisto anigiis hagaajiyay maxaan ku leeyahay habartay lacag yar u keenay aan ku habar lacagta ma aragtay noogu duceeya ayaa waxay ku yiraahdeen inta waceen habartaydii kala wacday waryaahe shaashada yaadi ka dhaariyay shaashada garaaca dhowr qof oo kaliya ta naftu kaga baxday shaashada garaaca hal mar 10 daqiiqo ku nasta leeyahay ku dhufay intay garaaceen bay ku leeyahay waryaahe gabadhan de iska soo doono awalba gurigan ayada goglatay waanu ognahayo yada sharaxatay iminkana ma ninkaaga waceen haa idina waxba kaagama baahna xoolana kaagama baahnin gabadhan kaalayo ka hayso gurigan ayada sharaxatay iminkana inay iskaba tagtay ahayd waxay meesha iskugu dhajinaysa garan mayne a'uud billah min ash-shaytaan rajim ani ma ogi markaa inay la hadleen inankii ordaya ii yimi oo markaasaa igu yiri maxaa khaldamay maxaa dhacay maxaan soo ku ogeyn markaasaan ku yiri wax maxaa khaldamay de sidee baa laygu yiri yaa masaasay kugu dhicin haa waxay tii waxba ma oran karo hadal weyn isteeyni af kuma celin karo walaa tay dhaleen walaa iyaga waxbaba waayahay bes baan ku yiri habareeray lacagteedan ku dhibin noogu ducee waaye waan iska tagana iska tagnay gurigaygii baan iska tagay halkii baan iska joogay ilmihii curad bay calol kale markaa maasha Allah war maasha Allah u dhaha ilmihii curad baa ku aqoon galay intii ilmaha curada dhalisay xitaa farxad meedan galmiya may waa iska noolayn alxamdulillah nin aad u wanaagsan maxaan ku dhahdaa wuxuu maaragtay shaqeeyo reerkiisa ku filan alxamdulillah baan ku jirnay nin wanaagsan wuu ahaa teedka wanaagsan noogama sheekeynaysan miya intii wanaagsan nooga sheekeeyo ila guurka aad kala nacayna moogtiin intii wanaagsan habluha ka sheekeeyaan marka sheekada soo qaadaan ninka sanad bis qabeen ama ilmaantu ilmaha dhalay saa wada noolaayeen farxadda maalintii qosol badan waan ku soo wada ila anagu hana oran way dili jiray hadhow way garaacay umba ku xigta hadhow ilmaan dhalay kadib way garaaca ku xigta waxaa dhacday markaan meeshii ku aqal galay ilmihii curad aan uurkiisa yeeshay wuxuu igu yiri
aniga markuu meeshu ka shaqeeyo waa magaalo aad markaa nooga fog uu isagu ka shaqeeyo tan aan ku aqalgalayaana waa magaaladii habartay ee deganaayeen marka waxay yidhahdeen ugaas dadka sheekooyinkooda kasoo qaatay romantic maaha marka wuxuu igu yidhi maadaama magaalo fog ka shaqeeyo anigana halkaa qol iiga karaysan yahay adiguna xaggan aad kala kala degan tahay ka waran haddii aynu maaragtay isku guurno aan alaabtii inoo sii raro oo marba ma sii socon karo marna ma soo socon karo waxay noqonaysaa anna halkaa deganaaanka dego way adkaanaysaa noloshu marka meeshan ka shaqeeya inuu u guuranaa waa caadi baan kuli waa sax alaabtaan sii gurayaa buu igu yidhi gurigana waa inoo sii kiraynayaa alaabtana waan sii qaadayaa adiguna marka aan alaabta geeyo guriga wax walba soo hagaajiyo gaari baan kugu soo doonayaa maadaabaad uur leedahay ma raba inaad maaragtay sii rafaadid waayahay baan ku idhi alaabtii oo dhan buu guray magaaladiisii uu deganaayay uu ka shaqayn jiray buu tegey gurigii buu goglay anigu markaa de intii gurigii la hagaajinayay waa ninoo maaragtay wuuna shaqaynayaa waxay qaadatay bil iyo badh anigu aan u tegay mataqaanaa abartaydii isoo korsatay waxaa ka doonaysaa soo guri lahaa gurigiisoo anaga rarnay ee aan gurigana fasaxnay isna rarnay igu anaa kuu soo noqonaya markaan guriga maaragtay soo goglo kow ma raaci waxaas adigu ka wana ma ninka raaci maxaa kaa reebay guriga ma raacin wallaahi waan iska xanuunsanayay walac baan ahaa waan ka haray ilaahay maad ku dhaariy waxaas meena khalad lahayn kullaha ninkii uu guuray ana habartan ku soo noqda waxaas maxaa ma yeelin hablow alaabtii waa la raray adigu guriga habartaa ku noqotay adoo ilmihiina wata ninkiina guriga alaabtiina warara markaan ku soo noqday waxaan isiri imika dee waxaa lagugu cayrinayay ee lagugu dilayay ee wax la-aanta iyo dad la-aanta iyo ehel la-aanta iyo maxaan ku rahdaa waxba haysasho la-aanta bay ahayd imika dee biilkaagana waad haysataa lacagtaadana waad haysataa yacni imika sidii hore maaha waanid weynaad guriga waan iskaga noqday ayaamihii hore si fiican bay ila hadhaldeen ila dhaqdhaqmeen wax maalmihii dambe ka dambeeyey sidii iyo si ka daran baa layla dhaqma ilaa laygu yidhi noordonna dhaaf guriga nooga baxa waaba layga saaray markii dambe gurigiiba bay iga saareen oo gabadh weynoo waxaa jirta maaragtay guriga kaa saaran ilaahay baan isku dhaari maan ku saxsanayn nin baa guursaday gurigeedii alaabtii la raray guriga habariteed bas iga soo noqotay maxaa adigu maxaa kaa qaldanaa marka waxaa dhacday in markay yidhahdeen dhaaf guriga kasoo horjeeda ayaan tegey gurigii markaan tegey aan halkii iska jifo odaygayga baan la hadlay waxaan ku iri ma imaanaysaa haa haye waayahay anoo gurigii joogu ii yimaaday maxaa uu yahay gurigan kale aad joogtid xaafadii habar maye gurigan habaryariyo waxaan isidhi ilmaha yar waan umulay markaa waxaan isidhi ilmaha yar baa maaragtay ku qaylinayo iska qaylo badan oo wakaaso markaasuu igu yidhi okay waaya reerkan soo salaamaya horta waa kuusoo sheeko dhaafay markaan umulay cabdiqaadir waa xanuusta gaastari wax la dhahaa igu dhacay oo maaragtay dhakhtarka la dhigay bil dhan baan dhakhtarka ku jiray markaasuu ii yimaaday anuu halka jooga bil dhan markaan dhakhtarka ku jiray ilmaha yar habarta iyo gabdhaheeda cid kasta way joogtaa anigaba ima naxariisan jirin naxariisna kama sugeynine bil dhan baan dhakhtarka ku jiray bisha ilmaha yar ee dhashay 12 cisho jiray marka dhakhtarka la dhigay 12 cisho inan yar uu abti u yahay oo inaabtidi dhashay buu inaabtigi dhalay oo adeer u yahay ayuu u keenay oo deeyadba gabadh yar 12 jira ilmihi yar 12 cisho jiray gabadh yar baa haysa acuudu billaahi minash ilmo 12 cisho jira inan yar 12 jir haysa bil dhan baan dhakhtarka ku jira xaaladaydu ay xaalad ka bax tahay marna ilmihi yar uu ku sii ordaa oo caaniya wax u qasqasayo ku dhahdaa si marna maxaan ku dhahdaa anigu dhakhtarka igu yimaadaa dawooyinka wax siiya ma kaco jiifka kama soo kaco nooma yimaadaan maxaan ku dhahdaa sidaa tihiin weli ima oran bil iyo bar baan ku jiray dhakhtarka ilmahaygi yaraa isagoo 12 cisho jira aan ka tegey
surka iyo labada garbood iyo barid intuba saas iskugu malaasmeen siduu u jiifay madaxu dhinac buu u batay oo dhinac buu u weynaaday madaxii maanta way i tustay gabadhu لا حول ولا قوة إلا بالله المهيرة سد أشيف لك والله جماعة قاعدين بقى dhulkaba lagama qadan gabadha yar isagoo jiifayba caanaha afka u gelisaa masaasada لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي من كل ريا خلت كاس كله ضد أن مسؤولية قاعد كريم بقى أبد بلاي كور المهيرة سد أشيف اللي بيتعشوها مساسد بالسينيون ما ذي حبات أن كانوا ويا أيوة هاي bes inankii yaraa markaan u imaaday aan biliya bar kadib dhakhtarkii kasoo baxay ilmo wuxuu noqday kalo curyaan camala dhabarkii iyo garbihii iyo qoortii waxbaa si iskugu wada dhegdhegan oo si isku wada galgalay miskihii adigu ilmo yaroo bil iyo badhaas uu jiro halkaa jiifay weeyaan aan cidiibo kor u qaadi jirin oo gabadhaa yaree damaankarsa isagaba waxba caqli dhaamin ay haysay adu ilmihii yaraa waxa laygu yiri dadka maaragtay wax duugduuga islaamaha ee garbaha saara ee bal ha ku kala saaraan u tago islaamaha iyo waxaasan maaragtay abaa ku fura لا حول ولا قوة إلا بالله والسكورسنا والسقنينا المال اسكدلا المهي لما يقاسي لوكو السنة marka waxaa dhacday adigu islaamiya waxay duugduugaan u raadraadiyay maxaan ku radaa raadraadi baa laygu yiri waan raadraadiyay isaga shaqadiisa iska aaday anigu ilmo yaraasaa ula silcayay aan raadraadinayay ayaa magaaladii habartay deganeed ku soo noqday oo laygu yiri islaam baa jirta ilmaha carruurta duugta oo wax maaragtay magac lahoo tuf oo kala oo ka duugduugto markaas waan u imaaday magaaladii baan imaaday cid kale aan u taga ma garanayo albaabkan iskaga soo gargaraacay habartay reerkoodan sidinta ilmaha geer u hela sidinta la duugayo waqti bay qaadanaysaa maalin kasta la duugaya markaa aad iskala joogtid qoshi waxay doonaan ha kugu sameeyaan ilmaha yar subaxaas waan qaaday oo la soo duugduugaa oo la soo bahalkiyo oo la soo kala saaraa waa ku soo noqdaa maaragtay adigu xoogay wallahi way dhibaateeyeen cunto ima dhigaan haddaan sidoo ilmaha yar faxo karso dabka saaro dabkii biyo lagaga shuba biyo laga baqtinayaa waa la rafaadiyay markii dambe waxaan sameeyay waxaan kurinta ii dhamaanayso dugmadiya waxaan guri yar oo ka soo horjeedaan qolka kareysta waa min iskaga guurayba maxaa ku duldhigay baan siri halkaaga qolkaaga kareyso inta ilmahaaga u dhamaanayso dugmadu adigu inankii yaraa madaxii mooyaan intii kale iska yar hagaagay madaxii un baa dhinaci u batay waxaad moodeen isku bogsoon shaashada ugu dhageysaa mar garaaca bal ma qancaawa shaashada ugu dhagay balaayada ku soo alaykum salaam naadi soo dhow 10 daqiiqo ku nasta shaashada ban haya shaashada inoo garaaca saxaabe bes wuxuu sameeyay markaa wuu soo doonay markii dambe markaa reerka inaan ka guuray uma sheegin waxaan isagana waxba warwar ha gelinin oo xaafadii waan ka guuray waxba toonha orani guri ka soo horjeeda wuu ii yimi maxaa kugu dhacay xaafadda maxaa kugu dhacay uga soo gurtayo waxba wallaahi baan ku uriye inanka yar baa iga xanuunsanaya qayladiisii baa badatay waxaan waxba yaan la dhibsanin waa yihi bar xaafadan soo salaamaya nin iska diyaar garow waynu tegaynaa haye xaafadii baan u tegay xaafadii buu u tegay xaafadii baa cabaar soo joogay xaafadii buu cabaar soo joogay fadhiya mud galhuun ana galiye ku soo haye xaafadii markuu cabaar soo joogay la soo sheekaystay wuxuu igu soo noqday isaga oo nooc kala isagoo sidee isagoo igu hurufayo aamusana oo igu yiri xaafadda waxaad ku samayso dhan waa la ii sheegay qof xun baa tahay wax kasta la ii sheegay wax kastaad samaysay halkan maxaad ka soo doontay sababteed guriga kale u kareystay maxay tahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إما أنا مري ilmaha ay diyaar hadaad rabtid adigu magaalada joog ilmahaygan qaadanaya hadii kale aad rabtid aydan ku tahay inaad raacdo ilmahaga raacdana aad haysatana ina bixi يعني weligii alintaas aan isqabnay weligii isku maanaan dhicin xataa anagu qof wanaagsan dadtiisa yaqaana buu ahaa aniguna sidoo kale reerkayga waa wanaagsanaya ninkayga
haya waa iska aamusay waa arkin lasoo bedelay wax lagu soo dhuray waxaan sameeyey alaabtii waan xidhanay waan israacnay waan tagnay haya wuxuu keenay inuu yidhaahdo ilmaha yar hadduu in yar ooyo ilmaha yar maad qabatid bahal bilaaba sare baa tahay bahal aan ilmana hayn karin baa tahay bahal sidana baa tahay aflagaado cayi maxaan ku dhahdaa ilaa gacanka hadal uu markii dambe yimi markii dambena uu igu yidhi naa waaban ku furanaa horta kumaba qabi karnee ma ku dilaya xitaa haa de marka ladaa khaldanaaba ninka keligiisii daaya alaabtiina wararta gabadh kale guriga geystay be adaa khaldan walaalate may waa ninkan israacnay tagnay bes markii hore soo keligii maad dirin oo alaabtiina muu qaada maxaad rabtay adugu haya markii dambena wuxuu igu yidhi wax makuu sheegaa qof xun baaba tahay bes dalkaaga sheekaynayo iyo waxyaalahan aad samaynayso anigu sababtan u arki waaye garanba maaye qof xun baaba tahay inagu kala wad dalqad buu i furay ma i furtay haa haye waaye alaabteedii baan iska urursaday adigu malaha markiiba wuu iga baxayo niman odayaala oo ilmaadaradiisii waxaasba usoo sheegay uri waan furay wakaasoo reerkayga waan furayo wakaaste saasaan ku kala baxnay nimadii baa soo cararay nimankii baa soo yaacay odayaashii baa ii yimi adeer naga raali noqo gurigana ha ka tegin alaabna ha urursan ilmahaagana joogo hayso ninkan anaga kaala hadlana maadaama markii ugu horeysay tahay annaga markaa nagu qaado ninkaagu wuu caraysnaa xagga shaqadiiyo waxyaala maaragtay dhanka shaqada ayaa jirtay iyo hawlo marka adeer naga raali noqo reerkiina sidii bay igu soo celiyeen odayaashii isagiina markii dambe caadigiisa hore kusoo noqday uu raali geliyey ilmihii labaad ayaa markaa noo calool galay oo gabadha oo hadda 6 bilood jirta marka inantaa yar halkii baan iska joogay inantaa yar waan dhalay 6 bilood bay jirtaa maxaan ku dhahdaa horta waa soo samray waana soo in badanna waan soo silcay hooyadayna allah u naxariisto igu soo duceeya aabahay qof waayeela oo maxaan ku dhahdaa oo aan maaragtay lixaadkiisu dhammaystirnayn maalinkuu tegey dhowr bilood sii maqnaa isoo bilay baa iigu dambeysay waan la hadlaa wasalaamu calaykum wacalaykum asalaam biilkii yaraa wixii soo diri jiray waa iga goostay markaa tiim aabaha hadda joogaa markaa maraykan aabaha maraykan u joogaa haa waa gartay hadda sanad iyo badh waxba iima soo dirin ninkaaga aawa soo kale laguma qabo uu joogaa ninkaygii uu shaqeeyaa shaqada yar ee maaragtay kirada iyo biilka yar iyo waxaan cunano iyo 2 caruur baan nahay laakiin hadda aniga dhibkay haystay waxa weeyaan kaliya horta ii soo ducay waxaan xanuunsanayaa kaaja haysta korkeeda ayaa buro iga taalaa muddo sanad iyo badha sababaan mar tegay intuu xoogay ii ururiyey jigjigaan tegay jigjiga markaan tegay waxaa laygu yiri herar baan tegay baan leeyahay herna waxay igu tiri adis ababa tag xagga baa lagaaga jarayaa lacag intaa legna way qaadanaysaa qofkii wax ii awooda tiim adkaa ugaasay qofkii aan la soo xaqiijin waxba dadka ma weydiinayna in wax la soo xaqiijiyo waa sheekadu soo gudbiya waxay igu tiri qofkii raba inuu caawiyo uu xaqiijin karo wala ma soo xaqiijisay laakiin adigu dee walaalo anigu miyaan eegi karaya brother qofkii aad soo xaqiijisaan bis dadka u keeni karnaa qofka sheekadiisu soo gudbiya teeda kale sheekadu inaan ka soo gudbinun ba hadda ahayd maadaama waxay tiri cabdiqaadir baan si gaabniyo la soo xiriirayaa bay igu tiri insha allah waana inanta nambarkeedana waad haysaa insha allah marka ay soo duceeyay bay ku tiri in ilaahay caafiyo aabahana maraykan u jooga la hadalde والله ويسمع وان سلامة وحليه وحو ماركتي إيغا بقوسي بقول بيسو دير جويغا كوستا بيتري